Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Asxaabta ay soo dhowaada meel kastoo aad dunida ka joogtaan, kuna soo dhowaada warbixinadii ugu dambeeyey ee ciyaaraha saaxiibayaal. Saaxiibayaal, waxaan eegi doonaa laacibkii hore ee Barcelona iyo xulka Argentin, Leo Andre Messi, oo daaha ka qaaday dhibaatooyinka faraha badan leh oo kala kulmay naadiga Paris Saint-Germain. Laacibkan lagu magacaabo Leo Andre Messi ayaa 2 sano ka hor ku biiray kooxda reer Faransa ee Paris Saint-Germain ayagoo kala wareegay free, maadaama kooxda kubadda cagta Barcelona aysan heshiis kale la saxiixan karin in laacibka lagu magacaabo Leo Andre Messi. Leo Andre Messi ayaa daaha ka qaaday markuu yimid kooxda Paris Saint-Germain dhibaatooyinka faraha badan leh uu kala kulmay naadigan reer Faransa. Waxa uu sheegay laacibka Messi inuu soo celin waayay qaab ciyaareedkii lagu yaqaanay waqtiga dheer ilaa 15 sano. Waxa uu dhaliyay Leo Andre Messi hal qaab ciyaareed maadaama uu ahaa laacib mar walba gool laga fisho, waxaana kooxda Paris Saint-Germain ku waayay goolashiisii fara badnaa, caawintiisii iyo goyntiisii, wax walba oo ahaa ayuu ku waayay kooxda reer Faransa. Waxa uu ahaa halyey wax badan u soo shaqeeyey ama madaxa iyo tunka soo saartay kooxda reer Catalonia ee Barcelona, waxaana wax badan uu wacdara ka soo dhigay garoonka weyn ama qalcadda weyn ee Camp Nou. Marka laacibkan ayaa waxa uu sheegay in kooxda Paris Saint-Germain ay ahayd dhibaato ama nabar ku yaala noloshiisa. Waxa uuna sheegay kooxdan inay tahay koox mar walba ku mashquulsan lana kala safata ciyaartoyda isku dhaca qolka labiska. Waxa uuna sheegay laacibkan inuu qolka labiska ee Paris Saint-Germain uu ka jiro muran fara badan maadaama naadiga iyo dhammaan howlwadeennada naadiga Paris Saint-Germain ay la kala safteen laacibka lagu magacaabo Neymar iyo Mbappe oo muran weyn oo halka rigooraha ah ay isku khilaafeen. Marka saaxiibayaal, labadan laacib ayaa muranka u dhexeeya labada xidig Neymar iyo Mbappe weeye waxa ku faafay dhammaan daafaha ama banaanka kooxda Paris Saint-Germain. Kooxdan ayaa ah koox aad iyo aad u dhaqaalo u haysata, waxaana maamula nin milyaneer ah oo kasoo jeeda dalka Qatar. Marka saaxiibayaal, waxa uu sheegay caqabadaha uu wajahayo Messi inay wax badan ay ku keentay noloshiisa. Waxa uuna ka shalaynayaa inuu ka yimaado Isbaanishka, waxa uu yimid dal uusan aqoon, waxa uu yimid dal iyo naadi uu iska ahayn diiq. Waxa uu joogay Messi naadi uu ka yahay diiq, wax walba uu asaga amrana uu dhaqaaqi jiray, laakiin wax walba waxay isbedeleen markii 2 sano ka hor uu ku biiray Paris. Waxa uu noqday dooro laacibka lagu magacaabo Leo Andre Messi. Marka saaxiibayaal, waxaan kaloo eegi doonaa laacibka lagu magacaabo Karim Benzema oo walwal badan ay ka qabto kooxda kubadda cagta Real Madrid. Waxaan ognahay in bisha soo socota ee October ay dhici doonaan El Clasico. Laacibkan lagu magacaabo Karim Benzema oo sanadkan loo xaglinayo inuu ku guuleysto Ballon d'Or ayaa saaxiib waxa ka soo gaaray jilibka dhaawac aan laga shakin ama dhaawac aad moodo inuu wax yar yahay, laakiin dhaawac ayaa kusoo laba kacleeyay laacibka reer Faransa ee Karim Benzema. kooxda lagu magacaabo Real Madrid uu sanadihii lasoo dhaafay tan iyo bixitaankii laacibka Cristiano Ronaldo uu madaxa iyo tunka saartay kooxda lagu magacaabo Real Madrid. Marka tababaraha ayaa waxa uu ka qabaa walwal badan. Ancelotti waxa uu leeyahay kama maarantid laacibkan muslimka ah ee Karim Benzema. Marka walwalkan faraha badan leh ee dhexda ka gashay kooxda lagu magacaabo Real Madrid ayaa waxa ay ka cabsanaysaa inay weydo laacibka lagu magacaabo Karim Benzema El Clasico. Kulankan oo kulan u dhexeeya labada naadi ee ugu waaweyn adduunka oo dhan waa Real Madrid iyo Barcelona. Marka walwalkeeda aad ayuu u fara badan yahay laacibkan lagu magacaabo Karim Benzema oo sanadihii lasoo dhaafay ama sanadkii lasoo dhaafay champion La Liga u soo qaaday kooxda kasoo jeeda magaalada Madrid ee Real Madrid. Marka saaxiibayaal, intaasaan wararkeena kusoo gabagabeynaa. wixii war ah oo gadaashan yimaada halkan ayaa kala socon doontaa saaxiib, waana ku mahadsan tahay saaxiib la jaanqaadkaaga.